السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان برشومة Soomaaliyeed ugu xiran soo dhawaada. Arkadan waa arkada Daar Salaam. Waxaan hadda ka sii bixinaa arkada. Ma soo galayno waa ka sii bixinaa. Ina hadalkaas faantaan rajeynaya. Laamiga warshadaha markaa ka soo leexato waa u soo leexada laamiga Daar Salaam soo aado arkadana imaanay. Arkadan markaa soo gashid gudaha u sii gari kartaa. laakiin markaa Daar Salaam degan tahay laakiin magaalada aad soo socotid waa ina arkada saan hadda uga soo baxno kala uga soo baxdid arkada ka soo tagnay arkada agteeda ka leexanayna isla wadadan baan ku leexanaynaa waxaanu tagaynaa hal boos oo iib ah ku yaala Daar Salaam deegaan ah markaa idin dhahayo waa meel korontadina leh biyihina leh guryaheeduna ay teelteel yihiin haddaa u baahan tahay aad dhisan kartid haddii kalena aad sugan kartid wadadana ku soconaynaa waxaan idin tusin doonaa dhulka meesha ku yaalo sidoo kale waxaan idin sheegi doonaa cabirka uu ku fadhiyo qiimaha lagu rabo kiiloomitirka laamiga uu jiro xogtaas oo dhan muuqaalka idin kugu faahfaahin doonaa inta badan waxaa jirta dadka ayagoo muuqaalka dhameystiranin inay yiraahdaan dhulkaana u baahanahay okay markaa dhahdid dhulka u baahantaa qofku inuu ku yiraahdo dhulka adiga soo bandhigtay sidee ii weydiinay dhul badanaa soo bandhignaa ma ogaan karna qiimaha hadaadan la wadaaginin dhulka aan ku sheegnay iyo meesha ku yaal xogta fiidiyowga hadaadan dhageysanin anaga kama jawaabi karno laana dhulal fara badan soo dhignaa eriyadan hadda marayna eri buruuj la dhahaa dabaqyadan buruuj agteeda laga dhisay haamankaas oo jeedin waa haamanka buruuj shirkadda buruuj inta degan dabaqyadan isla shirkadda dhisayso dan isteeda ka dambeeyo hadda buruuj waxaa ku aadan isteed cusub oo mar dhow la dhisay kulli dabaqyadan hadda dhismaha lagu wado laamiga dalcadda markaa soo koraysid saddexda dabaqo mataanaha ah ee ayaga si siman oo arkaysa bari ka maalin fiigoodu maasha Allah uu noqon doonaa markaa dalcadda ka soo socotid waa la arkaya almuhim dhulkan hadda u sii soconaa deegaanka waxaan hadda mareynaa meesha teelteelka ka ahaa deegaanka intuu ka buuxay waan soo dhaafnay laakiin teelteelkii baan mareynaa muuqaalka meelaha aan ku hakakanay ama dadka wajiyadooda ay qabatay waan ka jarjarnay inta kalena si waafiya idin tusinayna muhiimadda qofka marba hadduu dhul rabo waa inuu sharaxaad iyo warbixintii xogta u dhageysto si uu u fahmo meeshaan halka ay tahay aniga hadda muuqaalka laamiga ka soo bilaabay ilaa dhulkan idin dul geynayaa dan kale kama lihi oo aan ahayn inaa fahantaan meesha wax idinka jiraan amaba qaabka aan u shaqeynayno haddaa inta fahantid dhulna aa u baahan tahay waxaa ka qaadan kartaa xog dhammaystiran den hadduu ku anfacana waa qaadan hadduusan ku anficina waa ka socon kartaa ama dad kale la wadaagi kartaa laamiga laba gedi waaye dhinacna qorax ka soo bax weeyaan dhinacna waa qorax u dhac dhanka qorax u dhac ee Daar Salaam soo aadnay dabcan dadkan way fahmayaan buruuj baa daa idin dhahay oo dhinaca buruuj soo aaday buruuj waxay ku taalaa dhinaca qorax u dhac ee laamiga Daar Salaam hadda waxaa qiyaasi kartaan oo isleedihiin deegaanka uu go'ay laakiin ficlan muunan go'inin laakiin teelteel uu noqday macnaha way kala dheeraadeen guryaha waxaana ka dareemi kartaa mar meesha sidaan hadii loo degan yahay ammaan inay tahay halka guriga ku yaala nin baa iska laho degan kala nin baa iska laho degan nin baa iska rag iyo dumar baa loo adeegsadaa kelmadda waa iska caadi qalata ay fahminina macnaha meeshaan inay ammaan tahay ama wax dhibaato dhanka amniga inaysan ka jirin waxaa ku dareemaysaa qof baa halka inta dhistay oo guri waliba filaha ka dhistay lacag fara badan uga baxday buu degan yahay marka ammaankeeda intaas ku cadeynayso guryaha inay saan u kala fogfogaadaan ninba meel uu iska dego ama qofba meeshuu rabo uu dego magaalada macnaha dadka waxay u tahay nifaas ama nafis bay u tahay dadka magaalada ku cabursan ama dadka dibadaha ka yimid inta badan ba jecel inay meel iska yara banaan oo hawo leh degaan guryahan hadda u jeedin waa la wada degan yahay mid faaruq kuma jiro korontada wali way nala socotaa biyihii way nala socdaan meesha aniga waxaan ictibaarinaynaa deegaan markii la noqoto korontii biyo meesha hadday korontana leedahay biyana leedahay laamigana aynan aad uga fogeyn waa deegaan laamiga ka fogaata hadday rabto hadday biyo leedahay koronto leedahay waa deegaan halka nusboos baa ka dhisan waa la degan yahay nusboos filaha ka dhisan marka jawiga waa fahmi kartaan waa aragtaan hadda guryaha booskina waan joognaa booskan meeshaan horteena ku yaala waa koonfur jeed cabirka uu ku fadhiyo waa 20 lagu dhuftay 15
dukumentigiisu waa nadiif. Daarusalaam dhowr marna su-aashaas way igu soo noqotay, wax siyaad baraa lagama helo ama siyaad bara shaqo kuma laha, leanna waa dhul asaga dhanba 10 sano deegaankiisu uu ku egyahay. Deegaankiisu 10 sano ah, macnaha wixii kasii horeeyay ma jirin, 10 sano wixii ka dambeeyay waa. maadaama ay deegaan cusub tahay, dukumentiyadeedu waa dukumentiyadan dambe. midna ogaada dukumentigu inuu macnaha siyaad bara yahay iyo inuu cartay ama xasan shiiq yahay, wax farqiga u dhaxeeya malaha, waa isku mid. dukumenti ahaan inuu dukumentiga nadiif yahay loo ictibaariyaa, laakiin dowlad muhiim ah, dowladdu xilliga rabtaa joogto. booska meesha hadda kaamirada aan idinkugu aadin ku yaalaa, kilomitirka uu u jiro masjidkan hadda aan kaamirada idinkugu qaban doono. markaan waa maran soo laabtay, muuqaalka soo noqodka waan jira, laana waa intaan sii socday baan idin geeyay. masaajidkan 800 oo tilaabo u jira booska. masjidkan iyo dabaqyadan dhaadheer oo hadda buruuj agteeda laga dhisay wuxuu u jiraa 800 oo tilaabo. laamiga intuu jirana waan idin tusinayaa. laamigana wuxuu u jiraa 1 kilomitir iyo 300 oo tilaabo. macnaha laamigana 1 kilomitir iyo 300 oo tilaabo u jiraa, masaajidkan 800 oo tilaabo u jiraa. waana meel korontadii biyihii leh, deegaankeeduna oo teelteelaya. guryo camiran miinaan arkinin, kumana yaalaan, laakiin waa teelteel, qof walba meeshuu rabo degan. booskaas lacagta lagu rabo waa $12,000. 12,000 dhul koronto leh, biyo leh, deegaan aa ka dhigan kartid ayaad ku heshay. dabcan dad badan oo idhahayaan waan arkay, Daarusalaam ma 12,000 iyo 20,000 iyo wax lamida dhulkeeda deegaanka uu noqday. dhulkii hoos uu zaaid ugu dhacay. aniga waxa aan soo bandhigo waa wax aan jaanis ka dhex arkay. dhulka caadiyan markii suuqa laga raadiyo waxaa laga yaabaa qiimaha inaad ku arkin, laakiin dhulka aan raadiyo ficlan jaanis aan ku raadiyaa. meeshan haddii 20,000 ay joogto, waxaan wax ku raadiyaa dhowr iyo 10,000. macnaha dadku inay ka faa'iideysan karaan, intaasaa muhiim ah. ay dhul kasta oo aan hayo ma soo bandhigo. dhulal fara badan baan hayaa, laakiin midkaan israado kan aadaa looga faa'iidi karaa aan idinla soo wadaaga. booska marka argadana ka tagnay waa kusoo noqono go and bag, inkastoo baagii aan videoga fuul aan idinkugu soo celinin, laakiin sharaxaada nala dheeraatay. booska meesha uu ku yaalay waa aragtay, meesha labada filood ee deegaan ahaan teelteelka ah iyo nus booska goonida u dhisan ay ku yaalaan buu ku yaalaa. waa koonfurjeed, waa 25 rasiidiisa barloog nadiif u wataa, sharcigiisa waa nadiif. lacagta lagu rabo waa kaliya $12,000. 12,000 ku qaado boos deegaankuu noqon kara. beri haddaa sii sugatana dee meeshu way camirmaysaa, sidaa ma sii ahaanayso. awal 1 filaa ka taagneed, hadda 2 ay noqdeen, beri 3 ay noqonayaan, beri dambe waxa waaye. muhiimadda waa inaad ka faa'iidaysataan wax walbo jaanis oo idin hor yaalo. aada u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.